Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii diblomaasi. Barnaamijkeena diblomaasi ayaynu subaxnimada saaka ku falanqaynaynaa doorashada ka socota dalka Talyaaniga. Doorashadan ayaa la saadaalinayaa inay noqoto tii ugu adkeyd ee ebed ka dhacda dalka Talyaaniga. Sidoo kale doorashadan ayaa waxay noqonaysaa sida la saadaalinayo doorashadii ugu horreysay ee haweeney ku guulaysato dalka Talyaaniga, inkastuu ka mid yahay dalalka reer galbeedka ah ee ku faana ilbaxnimada qadiimiga ah, haddana weligiis haweeney ra'iisul wasaare kama aanay noqon. Waa mid iskale baarlamaanka ugu badan adduunka, kuraastiisana had iyo jeer ale waxaa haraya muramo aad u badan. Dalka waxaa doorashooyinka isu soo taaga xisbiyo aad u badan, kuwaasoo intooda badan u kala qaybsama bidix iyo midig. Haatan ayaa la saadaalinayaa xisbiyada midigta inay ku guulaysanayaan doorashadan hadda ah. Xisbiyada midigta ayaa waxaa hogaaminaya xisbiga la yidhaahdo Walaalaha Talyaaniga oo ay hogaamiso haweeneyda la yidhaahdo Giorgia Meloni. Sidoo kale xisbiyada midigta waxaa ku jira xisbigii uu ka tirinayay muddada dheer ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Talyaaniga Silvio Berlusconi. Waxaa ka mid ah xisbiga la yidhaahdo xisbiga waqooyiga ee uu hogaamiyo ninkan inoo muuqda, waana ninka shakiga weyn hareeyey, lagana shaki qabo inuu ka baxo goordhow xisbiyada isbahaysiga, maadaama markii hore uu rajeynayay in xisbigiisu uu noqonayo kan hogaaminaya xisbiyada, isaguna uu ra'iisul wasaare noqon doono. Balse saadaasha ayaa sheegaysa in haweeneyda Giorgia Meloni xisbigeedu uu yahay kan ka horreeya kiisa. Ninkan odaga waa guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee dalka Talyaaniga oo ah kan hogaaminaya xisbiyada bidixda ah. Waxay xisbiyada bidixda durbadiiba isku qanciyeen doorashadan inaanay iyagu helayn. Kan waa Giuseppe Conte oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Talyaaniga, waxaana uu haatan hogaamiyaa xisbiga lagu magacaabo M5. waana xisbiga keliya oo aan labada garab ee bidixda iyo midigta midnaba ka tirsanayn. Waxaana la saadaaliyay ra'iisul wasaaraha hore xisbigiisu inaanu wax kuraasoo badan heli doonin, maadaama doorashadan la saadaaliyay inay ku guulaysanayaan labada garab ee midixda iyo midigta miduun, kuwaasoo ay ku jiraan xisbiyo aad u fara badan, halka xisbiga ra'iisul wasaaraha hore uu yahay xisbi keligii socda. Haddaba daawadayaal, waxaynu fiirinaynaa, waxaynu ka naqan haweeneydan sida lama filaanka ah kula wareegtay siyaasaddii Talyaaniga. Haweeneydan ayaa hal mar hore usoo noqotay wasiir, xilligaasuna waxa uu ahaa intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2011. xilligaasuu ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Talyaaniga haatanna ka mid ah ururadeeda Silvio Berlusconi u magacaabay wasiirka dhalinyarada. tan iyo 2006 waxay ahayd xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Talyaaniga. Haweeneydan ayaa waxay tahay haweeney midig xag jir ah, waana dadka sida weyn u dhalila siyaasadaha midowga Yurub, intooda badanna doonaya gebi ahaanba in la kala diro midowga Yurub. ololaha doorashadeeda waxay ku gashay inay dhimi doonto lacagaha ay siiso midowga Yurub. sidoo kale midowga Yurub ay kula xisaabtamayso halka ay geeyaan lacagaha ay ka ururiyaan dalalka. Haweeneydan ayaa sidoo kale sheegtay inay la dagaalamayso nacaybka loo qabo dadka Yuhuudda ah, halka sidoo kale ay la dagaalami doonto muslimiinta mayalka adag. Dadka midigta fog ayaa lagu yaqaanaa mar walba ay sheegaan inay difaacayaan Yuhuudda, inay raaciyaan inay la dagaalami doonaan muslimiinta, inkastoo aanay ugu dhawaaqin inay si toosa muslimiinta ula dagaalamayaan, balse haddana waxay ku marmarsiyoodeen inay la dagaalamayaan muslimiinta mayalka adag. sidoo kale haweeneydan waa mid u daran qaxootigii faraha badnaa ee dalka Talyaaniga ku sugnaa amaba soo geli jiray. waxay sheegtay gebi ahaanba doonyaha wada dadka qaxootiga ah inay u diidi doonto inay kusoo xirtaan xeebaha Talyaaniga, taasoo ka dhigan in dadka doonyaha ka soo raaca dalalka Afrika ay haatan wixii ka dambeeya ku baabi'i doonaan badaha dushooda, halka haatan ciidamada Talyaaniga ay yihiin kuwa soo badbaadiya Talyaanigana keena. waxaase dhici karta arrinta midowga Yurub inuu ka hor yimaado maraakiib ka socda dowladaha midowga Yurubna ay soo daadgurayaan dadka keenaana dalalka kale ka tirsan midowga Yurub. waxay sheegtay inay ahmiyad weyn siin doonto nabadgelyada dalka. isku soo wada duuba, haweeneydan loo saadaaliyay in loo magacaabayo ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ayaa ah mid ka mid ah madaxdii midigta fog ahaa, kuwaasoo aynu ku naqaano islaam nacaybka, qaxooti nacaybka, kala sarreynta midabka iyo u ololeynta xaalada aan markaa dunidaba ka taagnayn. waxaanuna tusaale u soo qaadan karnaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump, inagoo si fudud ugu yeeri karnaa haweeneydan inay noqonayso Donald Trump kii Talyaaniga. daawada fadlan muuqaalka la garay mahadsanid.